kulanti waan daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran janalkan Shabalala Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. daawade haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato, furatana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan halkan ku soo baahiyo. war degdeg ah oo soo gaara ayaa sheegaya in fanaanka caanka ah ee qadarkeeyo xabsiga loo taxaabay. ciidamada dawladda Ethiopia ayaa xabsiga u taxaabay fanaanka qadarkeeyo asigoo ku sugan eelaboorka Addis Ababa International Airport. xiriiro aan la suubinay ehelka iyo qaraabada fanaanka ayaa waxaa noo suurto gashay in aan qadka taleefanka ku helno walaal kala dhashay qadarkeeyo, kaasoo noo xaqiijiyey in ay arintu ay tahay mid sax ah. qadarkeeyona xabsiga loo taxaabay uu haddana ku xiran yahay wadanka Ethiopia. arintan sidoo kale waxaa ka hadlay fanaanka weyn ee Cabdidhaanto oo bartiisa YouTube-ka soo dhigay muuqaal uu ku sheegayo in warkan uu saxan yahay qadarkeeyona xabsiga loo taxaabay. bal daawade nala daawo Cabdidhaanto oo xaqiijinaya in fanaanka qadarkeeyo xabsiga loo taxaabay. daawasho wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبن السلام يا مدة الصومال مركز تدون كجوكتان. صوتان فيديو قصة دوبي أو هورتي نوسوس تاكي وحويان فنان أبو قرنسان خضر كيو أو فنان دان يرو عانو صومالي دا جيجو صومالي دان لغاية قناه أيا وحا لغو حري دالك إثيوبيا. سلاس درتد وحان فيديو قصة دوبي إن أن دادك وحقيجيو فنان كوين حرين هاي oo dadaalo badan aan maartay soo binaysi aan wax badan arintaas aan ugu ogaado aan shakhsi ahaantayda marka fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa. shalay ayuu wuxuu u socdaalay dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa. fanaanka meesha laanta immigration-ka ayaa kulay ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen. aanu hadda halkan kama xaqiijin karo, laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray airport-ka, xalay toolena uu meesha ku xidhnaa. marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaan iyo kulli waxbaa socday. baaritaankii iyo kulli hawlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala. laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulli hadda idinma xaqiijin karo. waxaan isku dayayaa inaan wax badan ka ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe, ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha ku xiran yahay. dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii laftirkooda waan la hadlay, qadka taleefanka ayaan kula hadlay. iyagana waxay iga codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay, ay waxbana ka qaban waayeen. marka insha Allah sidaas ula socda. waan idin salaamay meel kasta dadka joogtaan, aad baan idin salaamaya. si kastee ahaataba lama ogo waxa lagu haysto fanaanka, inkastoo ay u badan tahay in arrimo dhinaca sharciga ah fanaanka lagu haysto, taasoo ay dawladda Ethiopia ay ku adag tahay in qof sharci dara wadanka ku soo galay amba arrimo sharci ay ku haystaan in ay si dhaqsi ah ay ku deeyaan. si kastee naqataba wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan. waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. daawade fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato janalkan, fadlan subscribe saaro, furana gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.